لاعبka ka tirsan kooxda kubadda cagta Inter Milan iyo xulka qaranka wadankaasi Argentina ee Lautaro Martinez ayaa ku gacan saaray dalabkii dhawaan ka soo gaaray kooxda kubadda cagta Manchester City ee ka tirsan horyaalka wadankaasi Ingiriiska maadaama toddobaadkii ugu dambeeyay tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola uu sheegay in muhiimadiisu ay tahay in ciyaaraankaasi ay ku xoojiyaan dalabka maadaama kooxda kubadda cagta City ay natiijo weyn ka soo gaartay raafaankii maxkamadda ee labada xilli ciyaareed ka saarnaa ka qaybgalka tartanka horyaalka qaarada Yurub ee UEFA Champions League kadib guulihii maxkamadda ay kooxda kubadda cagta City ay ka gaartay ayaa la filayaa in kooxda Manchester City ay saameyn ballaaran ay ku yeeshaan suuqa kala iibsiga sida ay qoraysay jirada Gazzetta dello Sport maamulka sare ee kooxda kubadda cagta Manchester City ayaana toddobaadkii aynu ka soo gudubnay xoojinaya dalabka ku aadan waryaanka reer Argentina Lautaro Martinez ka oo sidoo kale aad kale loo xirnay kooxda kubadda cagta Barcelona ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Isbaanishka Lautaro Martinez waa uu diiday dalabkan kooxda kubadda cagta Manchester City asagoo muhiimad gaar ah u arkay hadii uu ka dhaqaaqayo kooxdiisa Inter Milan inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Barcelona ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Isbaanishka waana muhiimadiisa koowaad wiilka reer Argentina Lautaro Martinez inuu aad u jeclaan lahaa ku biirista kooxda kubadda cagta Barcelona hadafkiiga ayaa ah kaliya inaan ku biiro kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa laga soo xigtay xidig reer Argentina ee Lautaro Martinez maamulka sare ee kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa xilligan isku dayaya inay markaa gacanta ku soo dhigaan macallinkii hore ee kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain iyo xulka qaranka wadankaasi Faransiiska ee Laurent Blanc waxaana la xusayaa in xilligan kooxda kubadda cagta Barcelona ay u arkayaan badnaanta koowaad in macalinkaasi uu ku soo degtay imaanshaha Stadia Camp Nou ee kooxda kubadda cagta Barcelona Blanc ayaana markaa aanan shaqaynin tan iyo sanadkii 2016 xilligaasi uu ka dhaqaaqay shaqada hogaaminta kooxaha waxaana xilligan la xiriirinaya sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Valencia isbedel walba kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa doonaysa inay markaa macalinkaasi uu bedelo macalinka xilligan hogaaminaya kooxda kubadda cagta Barcelona ee Satian oo la filayo in gabi ahaanba aysan suurtagal u noqon doonin xil ciyaareedka soo socda inuu hogaamiyo kooxda kubadda cagta Barcelona maadaama Barca ay ku dhamaysatay kala horeynta horyaalka La Liga wadankaas Isbaanishka kaalinta labaad natiijo xoogan muusan ka gaarin in xil ciyaareedkan uu gacan geliyo kooxda kubadda cagta Barcelona horyaalka Isbaanishka balse xilligan ayaa la hadalhayaa inay suurtagal noqon karto macallinkii hore ee xulka qaranka wadankaasi Faransiiska iyo kooxda Paris Saint-Germain ee Laurent Blanc in markaa ay tahay suurtagalka ugu muhiimsan inta aysan gacanta ku dhigin kooxda kubadda cagta Valencia ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Spain kooxda ka dhisan horyaalka dalka Talyaaniga ee Juventus ayaa muhiimad gaar ah u arkaysa inay xoojiyaan dalabka laacibka ka soo jeeda wadankaasi Faransiiska Alessandro Lacazette ee waqtiga kan xaadirka qaybta weerarka ka caawinaya kooxda Arsenal maadaama agaasimka kooxda kubadda cagta Juventus ay isku raaceen in tixraac xooggan loo sameeyo xidigani qaabkii looga dhaadhicin lahaa inuu u soo dhaqaaqo sirada wadankaasi Talyaaniga Juventus bartaameedka ugu horeysa waxa ay ka dhiganaysaa in ay yihiin labada ciyaaryahan ee u kala ciyaaraya kooxaha Roma iyo Napoli waa Milik iyo Edin Dzeko waxaana lagu tirinayaa inay ka mid yihiin bartaamida ugu muhiimsan ee koowaad ee kooxda kubadda cagta ee Juventus balse Alessandro Lacazette ay waqtiga kan xaadirka u arkayaan in sidoo kale uu yahay mudnaanta saddexaad waxaana ay doonayaan inay ciyaaraankaasi marka hore ay ka dhaadhiciyaan inuu aqbalo soo dhaqaaqista kooxda kubadda cagta Juventus tawlijeedka ugu weyn ay tahay inay si shakhsiyad marka hore ciyaaraankaasi laga doonayo inuu u saxiixo kadibna wada hadalka kooxda kubadda cagta ee Juventus ay doonayso inay la bilaabaan maamulka kooxda kubadda cagta Arsenal muhiimada kooxda kubadda cagta Juventus ayaa ah inay hesho bedelka rasmiga ah ee xidiga Gonzalo Higuain maadaama Edin Dzeko iyo Milik ba labada ciyaaryahan la filayo inay macquul tahay kooxda kubadda cagta Juventus inay ku wada biiri doonaan haddii suurtagal ay ka dhigto Juventus qiimaha labadaas ciyaartooyba ee kooxaha kubadda cagta Roma iyo Napoli ay doonayaan inay ku iibiyaan xil ciyaareedkani kooxda kubadda cagta Juventus Alessandro Lacazette ayaa u arkaan fursad aad u wanaagsan maadaama kooxda Arsenal ciyaaraankan ugu fadhiyo qiimo gaaraya 53 milyan oo lacagta Euro-ga oo 29kii bishii May ee sanadka 2017 ay kala soo wareegeen kooxda kubadda cagta ee Olympique Lyon isbedel waliba waxaa la xusayaa in kooxda kubadda cagta Arsenal ay markaa ceshan doonto maadaama ay maalin ka hor ay tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal macallin Arteta uu sheegay in Alessandro Lacazette uusan iibkeen kooxda uusan ka dhaqaaqi doonin laacibkan Lacazette ayaa 12 gool suurtagelay 6 ka mid ahna waxa uu ahaa caabiyaha ugu wanaagsan 33 kulan oo u saftay xil ciyaareedkani heshiiska kooxda kubadda cagta Arsenal waxa kaga harsan 2 sano laakiin isbedelada ugu xoog badan ee kooxda kubadda cagta Juventus ayaa ah bal inay isku day ku aadan xidigaas Alessandro Lacazette marka ay bilaabaan kadibna waxa ay sheegeen inay bilaabi doonaan ololahoodii ku aadanaa in hal mar ay isku helaan Alessandro Lacazette Edin Dzeko iyo laacibka kooxda kubadda cagta ee Napoli Milik
kooxda kubadda cagta Napoli ayaa xilligan xusaysa inay xoojinayaan wadahadallada ay ku doonayaan waryaanka u dhashay waddankaasi Nigeria ee Victor Osimhen. Ciyaarankani ayaa sidoo kale la xiriirinaya Manchester United iyo kooxda kubadda cagta Liverpool. haddaba waxay kooxda kubadda cagta Napoli ay doonaysaa inay marka hore toddobaadkan ay xoojiyaan dalabka xiddiga reer Nigeria ee Victor Osimhen inta aysan gacanta ku soo dhigin labada kooxood ee ku xifaaltamaya horyaalka waddankaasi Ingiriiska ee Liverpool iyo kooxda kubadda cagta Manchester United. xiddigan ayaana markaa la filayaa in gebi ahaanba uu ka soo ambabixi doono kooxdiisa ka dhisan horyaalka waddankaasi Faransa, laakiin waxaa la xusayaa in ay muuqan karto ciiraanka inuu aqbali doono dalabyadani ka soo gaaraya Premier League siba labada kooxood ee United ka kooxda kubadda cagta ee Liverpool. halka Napoli ay doonayso in toddobaadkan gudihiisa talaabo ay u qaadi doonaan ciiraankaasi si ay kaga hormaraan dooqida kooxaha ka dhisan Premier League wiilka reer Nigeria ee Victor Osimhen oo aad ugu wanaagsan qaybta weerarka. waxaana la xusayaa in kooxdiisa ay xilligaani go'aansanayso xil ciyaareedkan inay iska fasaxaan ayadoo u arkaya in dhaqaale xoogan ay ka samayn karaan haddii loo gacan geliyo kooxaha waqtiga kan xaadirka laacibkaasi Victor Osimhen aadka loola xiriirinayo xil ciyaareedkani. kooxaha kubadda cagta Liverpool iyo Manchester City ayaa sidoo kale waxay aad u ceelsanayaan ciiraanka ka soo jeeda waddankaasi Brazil ee Thiago Carlos. laacibkani ayaa waqtiga kan xaadirka u ciyaaraya kooxda kubadda cagta Sevilla, balse Thiago Carlos ayaa marka loo arkayaa in uu muhiim u yahay labada kooxood ee Liverpool iyo kooxda kubadda cagta Manchester City. koox walba ee ka dhisan Premier League sanadkani waxay suuqa ka baadi goobaysa ciyaartooy khibrad weyn u leh dhinaca difaaca. koox walbana qaybteeda dambe ayay rabtaa inay dhagaxaan xooggan saarto si aysan kubada u dhaafin. haddaba kooxda kubadda cagta Manchester City tababarooda Pep Guardiola ayaa marka u arkaya mudnaanta koowaad 27 jirkaasi maadaama kooxda kubadda cagta Sevilla ciiraankaas ugu fadhiya qiimo gaaraya 13 milyan oo lacagta geniga. waxaana inta badan la xusayaa in waqtiga kan xaadirka kooxda kubadda cagta Sevilla ciiraankaasi ay ku xireen karto waa lacag gaaraysa 75 milyan oo lacagta Euro-ga. farqi aad u fara badan ayaa u dhaxeeya qiimaha uu Sevilla ciiraankaas ugu fadhiyo iyo lacagaha ay doonayaan in ciiraankaasi ku fasaxaan haddii ay suurtagal ay noqoto 27 jirkaasi reer Brazil ee Thiago Carlos inuu markaa kaga ambabaxo garoonka kooxda kubadda cagta Sevilla. ma jirto labada kooxood ee City iyo Liverpool koox ugu dambeyn soo bandhigtay qiimaha ee 75 milyan ee lacagta Euro-ga ee kooxda kubadda cagta Sevilla ay ku beecinayso ciiraankaasi. labada macallin ee kala hogaaminaya kooxaha Premier League sida Jurgen Klopp iyo Pep Guardiola ayaana markaa la filayaa toddobaadkan gudihiisa inay go'aan rasmi ay ka gaaraan mustaqbalka wiilka reer Brazil ee Thiago Carlos. kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa weli ku rajoogta qorshaha ay kula soo wareegi karaan ciiraankii hore kooxda Manchester City Sancho oo waqtiga kan xaadirka ka dhex muuqanaya kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund. bilihii ugu dambeeyay tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United Macni Oli ayaa kalsooni weyn ku qabay in ciiraankaasi uu ku xoojin doono qaybta weerarka kooxda Manchester United, waxaana uu ka mid yahay bartilmaameedyada ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United. balse arrinta kooxda Manchester United ee damacsan tahay ayaana waxaana dheg jalaq u siinin madaxda sare ee kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund maadaama laacibkani lagu qiimeynayo ku dhawaad 100 milyan. tababare Oli ayaa markaa muhiimad gaar ah siinay ciiraankani in weli uusan ka sabrin maadaama la xusayo warbaahinta qaar ee waddankaasi Ingiriiskaba ay sheegayaan in Manchester United xilligan isku haysato ciyaartoy da'yar khibrad weyn u leh markii loo eego isbedelada sida xiddiga Marcus Rashford iyo laacibka Anthony Martial, sidoo kalena uu soo raacay laacibka da'da yar ee Greenwood. haddaba macallin Oli muhiimadiisu ma ahan oo kaliya in ciyaartoydaasi u xilsaaro qaybta weerarka isku xirkooda inay xoojiyaan, balse waxaa loo arkayaa in xiddigani Sancho lagama marmaan ay tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan kooxda Manchester United ay bilowdo ololihiisa. kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa doonaysa markuu furmo suuqa iibsiga ciyaartoyda ee 27 bisha aynu ku guda jirno inay markaa xoojin doonaan dalabka ciiraankaasi. heshiis qaybeed ayaana markaa laga warsugi doonaa maadaama heshiiska kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund uu ku haysta ciiraankani oo gaaraya tan iyo sanadka 2022. Sancho ayaana markaa horay u shaaciyay in muhiimadiisu ay tahay gebi ahaanba inuu markaa uu ku biiro kooxda kubadda cagta Manchester United. waxa uu diiday sidoo kale dhowr dalab ay ka soo gaaraya kooxo kale ee ka dhisan horyaalada Ingiriiska iyo sidoo kale Isbaanishka. ciiraankani Sancho oo markaa ahaa hogaamiye hore kooxda kubadda cagta City ayaa Borussia Dortmund wuxuu ugu fadhiyaa qiimo gaaraya 8 milyan oo kaliya ay City markaa sanadkii 2017 ay markaa Borussia Dortmund ay kaga iibsatay ciiraankani. haddase laacibkani Sancho ayaa suuq wacan ka helaya marka loo eego kooxaha ugu awoodda badan tartamada kala duwan ee qaaradda Yurub, waxaana lagu qiimeynayaa in ka badan 100 milyan maadaama kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund
afar jibaar ay dhaqaale aad u fara badan ay ka heli karto ciyaaraankaasi Sancho. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United Ole ayaana markaa xusaya in ciyaarahankani ay sida ugu dhaqsiya badan ankiisa ay soo gabagabeyn doonaan ka hor 27ka bisha aynu ku guda jirno intuusan dib u furmin suuqa iibsiga ciyaartoyda, waana rajada ugu weyn macna Ole uu leeyahay inay markaa ka soo salgaari doonaan arrimaha ku aadan xidigaasi reer Britain ee Sancho. kooxaha kubadda cagta ee Leicester City iyo Newcastle United ayaa si gaar ah u daneynaya laacibka ka tirsan kooxda kubadda cagta Norwich City ee Cantwell, maadaama labadani kooxood ee Leicester City iyo Newcastle United ay kula biirayaan dalabadii ka horeeyay sida Manchester City iyo Manchester United iyo kooxda kubadda cagta Tottenham oo ayna aad u raadinaya ciiraankani 22 jirka ee ka tirsan kooxda kubadda cagta Norwich City ee Cantwell. kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa markaa doonaysa inay ku xoog badnaato dalabka ciiraankaasi iyadoo loo maleenayo inay saameyn kale ay sameyn doonto kooxda kubadda cagta Newcastle United oo labadii toddobaad ugu dambeysana suuqa si weyn kaga dhex muuqatay iyadoo la doonayo kooxdaasi inay noqoto koox awood badan kadib markii tababaraha kooxda kubadda cagta Newcastle United uu sheegay in madaxda sare kooxda kubadda cagta Newcastle United ay u muuqanayso qorshe aad u ballaaran maadaama dhowr ciyaartoy oo qaali ah aad loola xiriirinayo kooxda kubadda cagta Newcastle United. haddase waxaa la xusayaa in xidigan Cantwell ka tirsan kooxda kubadda cagta Norwich City uu yahay mudnaanta koowaad ee kooxda kubadda cagta Newcastle United, balse waxaa la ogaan doonaa toddobaadkan inta ka harsan arrimaha ku aadan ciyaaraankaasi iyo dhaqaalaha koox walba ay doonayso inay ku qarash garayso 22 jirkaasi ka tirsan kooxda kubadda cagta Stoke ee Cantwell. ciyaaraanka reer Masaari ee Mohamed Salah ayaana markaa ka hadlay arrimihii ku aadanaa in ciyaaraanka aad loola xiriirinayo inuu u dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Real Madrid ee ka dhisan horyaalka waddankaasi Isbaanishka. waxaana Mo Salah uu leeyahay kooxda kubadda cagta Real Madrid waxay ka mid tahay kooxaha ugu awoodda badan tartamada qaaradaasi Yurub, waxaana sidoo kale ka mid tahay kooxaha ugu shacbiyada badan ayaa laga soo xigtay Mo Salah. ma jirto cid diid lahayd haddii ciyaaryahan marka uu dalab ka soo gaaro. shakhsiyanba hadda waxaan ku qanacsanahay mustaqbalka Stadia Anfield ee kooxda kubadda cagta Liverpool, balse haddii ay dhacdo inaan dalab ka helo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan ugu biiri doonaa, waayo taasi waa fursad aad u wanaagsan ayaa laga soo xigtay xidiga reer Afrika ee Mo Salah. arrintan Mo Salah ayaa ku xaqiijinaya inay muuqanayso olole ku aadan inuu diyaar u yahay ka dhaqaaqista Stadia Anfield ee kooxda kubadda cagta Liverpool. sheekadan ayay muddo aad u fara badan soo jiitamaysay iyadoo sidoo kale xidiga kale ee qaaradda Afrika ka soo jeeda Sadio Mane oo horey u sheegaysay inuu muhiimadiisu ay tahay inuu u dhaqaaqo mid ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka Spain sida Barcelona ama Real Madrid inta xifradiis kubadda cagta marka uu ku guda jiro. tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool macna Jurgen Klopp ayaa sidoo kale hore u sheegay inaysan suurtagal noqon karin labada ciyaaryahan ee Mane iyo sidoo kale Mo Salah inaysan ku degdegi doonin dalabyadani ka soo gaaraya horyaalka waddanka Isbaanishka, iyadoo sidoo kalena ay lug u laaban tahay kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee ka dhisan horyaalka waddankaasi Faransiiska oo toddobaad ka hor sheegtay inay ku dagaalami doonaan ciyaaraankaasi Mo Salah. aragti walba labada ciyaaryahan ayaana markaa loo arkaya Liverpool inay markaa culays xoogan ay ku tahay haddii ay dhageystaan ololaha qaar ka mid ah kooxaha aadka loola xiriirinaya ciyaartooydaasi.